wuxuu ahaa wiil aad u qurux badan dhaxda dhuuqsada markastana ku labista dhar soo jiidasho leh gabar kastoo Mustaf aragtaana waxay ka heli jirtay xitaa hadduu la hadleen gabdhaha iyaga ayaa salaanta la doonan jiray Mustaf badanaa waxaa dhaca dagaalo u dhaxeeya gabdho isku haysta wiilkaasi quruxda badan Mustaf qalbigiisa hal gabar ayaa ku jirta oo Ramlo gabar kale jacayl ma uusan u qaadin wuxuu ahaa nin ku kalsoon jacaylkiisa Ramlo waxay la kulmi jirtay caqabado kaga imaanaya gabdhaha kale ee jacayl Mustaf wadooyinka qaar ma aysan mari jirin dilal badan way ka badbaaday xitaa waxa la isku dayay in la siiyo sun iyo si ay u dhimato haddii ay dhimato waxay aaminsanayeen gabdhahaasi inay heli doonaan fursad ay kula kulmaan wiilka quruxda badan ay ka daba dhaceen gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho wiilka Mustaf wanaagiisa iyo quruxdiisa xitaa waxay gaartay qaaradda Yurub mararka qaar xitaa waxa soo wici jiray gabdha ku nool dalka dibadiisa gabar kastaana waxay juhdi iyo dadaal ku bixin jirtay mar uun inay gacanta ku dhigto Mustaf Ramlo iyada sidoo kale way jeclayd Mustaf waxayna ku kalsooneed laakiin sanadii 10aad xiriirkooda uu sii galay Ramlo waxay bilowday inay nacdo ama ka gaagaabsato Mustaf markii hore waxay wargelisay inay ku soo dhamaaday qalbigeeda aysan u hayn jacayl xiriirkooda uu noqday mid sidaa ku idlaada arinta soo bandhigtay Ramlo kuma farxin Mustaf wuxuuna aamini waayay in Ramlo nici doonto isaga Ramlo iyo Mustaf waxa iskuul ay ahaayeen xilli ardayda break time-ka amba qaybta nasashada u soo baxeen ay Ramlo waxay isugu wacday ardayda iskuulka dhan waxayna ka hor cadeysay inay nacdo Mustaf goobtay daadiska ka dhacay waxa jooga Mustaf oo iska ilmeeyay waxa uu ka codsaday inaysan sidaas sameyn haddii uu jiro qalad dhankiisa ka yimid uu sixi doono wiilasha iskuulkii way ku wada oriyeen halka gabdhaha qaarna ilanta ay ugu darayaan xijaabkooda inta badan gabdhaha waxay ku qanacsan yihiin inay kala haraan labadan lamaane oo xiriirkooda muddo 9 sano soo jiray Ramlo codsiga gacaliyeeda ma aysan tixgelin Mustaf wuxuu qaaday shoog iyo wareer xiisaha dambe aan bixisadaha dambe uu qaadan waayay wuxuuna xanuun dartiis inta uusan fasax qaadan Mustaf wuxuu ahaa mid iska ilmeeya ilaa maamulaha iskuulka oo arrintaani gaartay maamulaha iskuulka waxa isku dayay inuu dhexdhexaadiyo lamaanaha nolosha isku jeclaa muddana jacaylkooda soo jiitamaya kolba haddii laga ogaa iskoolka lamaanaha laakiin maamulaha waa ku guuleystay Ramlana way ka adeegtay Mustaf fasax ayaa la siiyay si uu nasasho u helo maamulaha iyo macallimiinta iskuulkana waxay siiyeen maalmo uu ku nasto intuu jidka ku sii jiray Mustaf waxa dareemay amba dardaray gaari kadibna goobta ayuu ku dhintay alla xanuun badana dadka goobta ka agdhawa ayaa sheegay in markii Mustaf uu dardaarmayay gaariga kamid ah ilinta ka socotay markuu gaariga dardarayay ay ilinta ka socotay markii uu gaariga dardaray waxa uu ku aadaaray Ramlo waan ku jeclahay Ramlo waan ku jeclahay Ramlo kama maarmo nolosheedii baa tahay qofka uu seexan jiray qolka uu seexan jiray darbigiisa waxa ku qornaa xasuuso badan oo dhaxmaray isaga iyo Ramlo sidoo kale waxa jirtay maalintii uu dhimanay habeenkeedii in uu siiyay Ramlo hadiyad aad u qaali ah qolkiisa waxa sidoo kale laga dhaxay Mustaf in ka badan 300 oo buug oo sheeko jacayl markii la aasay dadka qaarkii waxay sheegeen inay maqleen magaca Ramlo oo ka soo dhaxyeeray gudaha qabriga markay maqleen dadka xaafadda iyo wiilka uu dhintay jacayl dadkii oo dhan way la culuubeen Ramlo waxa la waayay qof wanaag u haayo gabdhaha qaar ayaa dhihi jiray waan ku dilaynaa wiilka magaalada aan ugu jecleen darta ayuu u dhintay xitaa waxa ay la sheegeen gabdho badan markay maqleen dhimashada wiilka ay qaadeen wali maadaama ay aad u jeclaayeen Mustaf Ramlo habeenkii markay ay seexato riyo ayaa ugu imaanaya Mustaf kadibna ceejo ayaa lagu qabtaa habeenkii oo dhan waa aadaare alla iga celiya Mustaf alla wuu ceejinayaa alla i badbaasha qaladeeda waxa laga maqraa guryaha dariska waa la isku soo baxaa quraan ayaa la saaraa Ramlo horta ma seexan karto waxa ku jira amba riyo ayuu ugu imaanaya Mustaf suuliga markay galeys waa ugu soo dabagalaya iyadoo suuxsan ayaa laga soo qaadaya suuliga nolosha Ramlo ayaa noqotay mid wax laga qaban waaye markii ay marayso jidka Ramlo way iska dhacdaa oo istaagtaa iyadoo istaaga ka dhacda waxayna dhahdaa waxay jalaafay Mustaf muddo markii dhibana ahayd ayaa ehelka Ramlo waxay go'aansadeen in loo guuriyo wiil muddo badan ayaa la raadinayay wiilkii maadaama wiil kasta oo maqla qisada haysta Ramlo uga baqo nafsidiisa markii dambe waxa guursaday wiil ilma adeer ahaayeen oo ka yimid dalka Kenya xilliga uu dhacay arooska ninka Ramlo guursanayay wuxuu dharbaaxasho ku dhufanayaa qofka uusan u jeedin habeenkii gawaarida arooska galbinaya waxay noqdeen kuwa wada halaysan lugaha amba sheega ka wada banjaray ninkii aroosay Ramlo habeenkaasi wajigiisa wuxuu ahaa mid bararsan Ramlo sidoo kale waxa jiidaya qof aysan u jeedin arooska ayaa noqday cabsi waxa bilowday tuuriyo iyo dhagaxaan ku soo dhacay goobta aroosku ka dhacay dadkii ayaa kala cararay qofba meel ayuu u cararay ninkii Ramlo guursanayay xitaa
waxa uu ka cararay xaaskiisa halka Ramla looga kala cararay qabriga Mustafa uu ku yeel habeenkii waxay ahayd mid dul seexata qabriga aroortii ayaan la arkay gabar dul jifta qabriga markaasna laga soo kaxeeyay lana keenay gurigooda Ramla ma aysan helin nolol nasasho leh dib waxa lagu guuriyay wiilkii ka yimid Kenya wuxuuna dhahay waxaan u wadayaa dalka Kenya si gabadha dibka haysto uga soo yaraado intii ku jireen toddobaadka ma aysan sameyn wax isku tegisa xilli kasta ay doonaan in isku tagaan waxa kala dhaxgalaya qof kadib markii jirkiisa ayaana lagu shidaa naar wiilka jirkiisa ayaa lagu shidaa naar iyo olol badan oo san wiligii hore u arkin halka gabadha isla markiiba labiskeeda dhaqso ku xirato waxaana sheegtaa inuu dhar ku xiro qof aysan u jeedin Ramla ilaa hadda waxay ku nooshahay magaalada Muqdisho waa dhibana nolosha ka haysato noloshii ugu xumeed ku jirta waxa haysto nafsiga ka gashay nafiyada jacayl oo muddo 9 sano daacad u ah qofka raba inuu guursado ilaa hadda ma lahan nin waliba wuxuu ka cabsanaya iyada maadaama ninkii hore uu ka yimid Kenya oo iska furay kadib markii uu arkay waxyaabo badan oo ajaa'ib galiyay waa gabar ku dhiban magaalada Muqdisho waxa haysta cuquubay nafsi waxaan haysta nafsi iyo ilbini aadam daadiska kadiska iyo qofka aad ka filaneen inuu ku nici doono waliba ku ceebeen deentid waxa leedahay dhibkan wuxuu leeyahay dhibkan oo kale gabadha hadii ay ogaan lahayd in sida noqonayso marnaba ay ku dhaqaaqdeen daadiska naxtinta leh ugu dambeyntii qof kasta oo xiriir leh qofka kale ha ka digtoonaada dhibaatada oo kale ha kana naxsan qofka ku jecel hana xumeen qofka adiga daacadda kuwa ha ku degdegin go'aanka inaad qof u saasho dhimasho markastaan isku day inaad wanaag kula